ku soo eedeynay kiis isugu jira dil iyo kufsi kaasoo ay wada qayb qaateen si wada jira dhammaantood falkaas waxaa ku geeriyootay allah u naxariistee marxuumad hodan axmed maxamed kiiskan sidaan hore u sheegay wuxuu dhacay 10kii bishii afraad 2019 kiiskan ka dhacay magaalada Garowe gaar ahaan xaafadda waa bari sidii aan sheegay oo isugu jiray kufsi iyo dil waxa si wada jira u soo baaray oo baarista uga qayb qaatay hay'adda baarista dambiyada culus ee CID tiimka forensic labka ehelada gabadhu ka dhimatay marxuumadu allah u naxariisto iyo reerkii qabay waxaana lagu soo qabtay arintaas falkaas haduu dhacay 7 eedaysane waxaana si toos ah marka laga reebo ninka la yiraahdo Maxamed Sadiiq oo ahaa isagu qofkii ugu horeeyay ee gacanta lagu dhigay tilmaamay oo sheegay 6 kale isagu Maxamed Sadiiq wuxuu isagu bixiyay qiraal buuxa tiro ka 3 jeer hadday tahay hay'adihii baarayay iyo hadday tahay qiraal uu ku bixiyay garsoore hortii warqadina aanu hayno sidoo kale waxaanu haynaa video uu ka hadlayo kuna tirinayo dadka dambiga la galay ku tilmaamayo qaabka ay u galeen haddaba 10kii bishii afraad 2019 goorbaad maqrib ah ayuu maxamed bixiyay waraysigii koowaad waraysigiisii koowaad wuxuu bixiyay 10kii bishii afraad 2019 wuxuuna sheegay warkan hoos ku qoran waxaana soo qaaday buu yiri baabuur bas ah waxa baabuur bas ah nagu soo qaaday oo nagu keenay guriga falku ka dhacay ninka la yiraahdo Axmed Saciid Abshir waxaanu ahayn buu yiri 3 nin aniga Abshir iyo Axmed Saciid Abshir ayaa darbiga guriga ka soo booday wuxuuna u dhacay guriga Abshir ma horta Abshir ba darbiga ka soo booday oo guriga u soo dhacay Maxamed Saciid oo warka bixinaya ka soo booday wuxuuna u dhacay guriga annagana asaga ayaa naga furay kadib waa albaabka gajeelka meesha uu furay darbiga ka soo booday kadibna gajeelka uu naga furay leeyahay wuxuu guriga kadibna wuxuu guriga ku garaacay islaantii joogtay way ka furtay kadibna Abshir islaantii ayuu qabtay oo bac madaxa u galiyay mara yarna uu ku ceejiyay wayna dhimatay waxaana guriga baaray Axmed Cabdulqaadir Saciid baa guriga baaray dii falkaasi dhacay gurigii buu baaray yiri wuxuuna ka helay lacag dhan qiyaastii 200,000 lacag aan ku qiyaasayo oo shilin Soomaaliya ayuu guriga ka helay oo kala baxay Maxamed Sadiiq isaga ayaana qaatay lacagtaas waxa guriga joogay wiil yar oo markii falku dhacayay dibadda u cararay ninka jareerka ah ninka jareerka ahna guriga wiil yar baa joogay markii falku dhacayay oo dibadda u cararay ninka jareerka ayaa gabadha kufsaday oo fuulay kadib Abshir wuxuu mar labaad ka booday darbigii ninka jareerka oo la socday kulay nimanka nin kamid ah weeye sida uu sheegayo magaciisa moo sheegay ninka jareerka waa adeegsaday ereyga ayaa gabadha u galmooday uu leeyahay kadibna Abshir sidoo kale ayuu darbiga uga booday wuxuu mar labaad ka booday darbigii uu horay uga soo booday aniga iyo saacidna albaabka ayaa ka baxnay haddaba Maxamed warkii cadda ee uu bixiyay sida falkaasi u dhacay ayaa waraysiyo raggaasi lala yeeshay midna ma qiran ragga kale marka iyagu midkoodna ma qiran falkaas laakiin waxa lagu taraacay oo lagu soo qabtay oo meesha lagu keenay warka Maxamed Sadiiq sababtu waxay tahay Maxamed Sadiiq magaalada Garowe hawiga ah umada joogta la arkay ayuu wuxuu ka tilmaamay oo ka soo qabtay 6 nin marar badan ilaa 3-4 jeer oo lagu celiyay waraysigiisa mar video laga duubay mar garsoore hortiis uu ku qiranayo mar uu ku qiranayo hay'adihii baarayay hortooda intaba meelna kama u leexan markasta intaas uu tilmaamay magacyadooda
meelaha ay joogaan kulli isaga farta ku wada fiiqay sida marka haddii aan intaa uga gudbo marka waxa weeye ninka la yidhaahdo mar saddexaad markaas waxay ahayd xilliga waraysiga lala yeelanayo ninkan waxay ahayd 10kii bishii afraad bay ahayd 11kii bishii afraad bacdal maqrib waxaa waraysi labaad la yeeshay maxamed gudoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee degmada Garowe Sheekh Cabdinuur si uu uga diyaariyo eedayn garsoore hortiis kursiyon sida sharcigu uu yahayna qofka waxaa la weydiiyaa in cadaynta uu bixiyo ay hadhow xujo ku noqon karto ku noqoto oo ku cadaato waxaa la weydiiyey in wax dhibaato ah loo geystay ma sheegin garsoore hortiisa kama sheegin wax dhibaato ah oo loo geystay leemana geysan buu yidhi sidoo kale waxaa la weydiiyey waxa aad kiiska ka ogtahay sheeg meeshii gudoomiyuhu ku waraysanayay waxaa isna goobjoog ka ahaa xeelaliyaha guud ee dowladda Puntland wuxuu sheegay wixii uu horay u sheegay oo aan isbedel iyo aakhir lahayn midna bedel iyo aakhir midna aan lahayn waraysigii hore uu bixiyey uu siiyey hay'adda baarista markii garsooraha iyo xeelaliyaha hor yimaadeen iyadii oo aan bedelayn buu sheegay la weydiiyey waliba wax dhibaato miyaa lagu geystay aadamata wax dhibaato lama geysan aniga si xornimo ah taama khayriya ayuu warka u bixinayaa inta kadib wuxuu ku daray warkiisa oo waliba sii sheegay ninka jeerarka buu yiri biyo badan buu gabadha ku shubay ku daadiyay hadalka uu ku celceliyay hadii aan sheegay ninkii falkaasi geeyay wuxuu kale yiri marka inta yiri hadii aan sheego dadkii falka galay oo geystay dirayna gabadhaas kubsiga u geystay aniga ma la sii deynaya warkiisa ku daray sidoo kale laakiin wuxuu ahaa nin carab la mana sheegin labadaasi waraysi midkoodna inuu yahay wax dhibaato loo geystay marna ma oran wax dhibaato loo geystay sidoo kale 29 bishii afraad 2019 waxaa mar saddexaad la yeeshay waraysi kale oo uu la yeeshay sarkaalkii kiiskan baarayay wuxuuna iska fogeeyay inuu kiiskaas wax lagu ah ku lahaa ورئيسنا بركة أستاذ سبحان مركز الصدحات وحبس قال لك لا تشكيلين كانوا لما كان قال سو نقدين وحي محمد صديق كبد لأن فكر كي هو رأيه كشري ده حبس قلت أنا نقطة أما يقدر هذا النقطة واسكفر على استير والقاس بدري أنت هراء أولاً وددي وهي مرنا كمان لحن سيدنا هروش يعني ورئيس السكوات وحقوقته السنة يلا بنين وكلا إن أي فالكاس قالين من برهان ليرهده وبس كفوق هذا nin burhaan la yiraahdo bas lagu qaaday burhaanada kuma jiro dadkan sida muuqata wuxuu sheegay sida ay guriga u soo galeen nin walba meesha uu ka soo galay sida uu soo galay wuxuu kaloo sheegay in nin midka saddexaad ee guriga deyrkiisa ka soo booday una iyana ka furay albaabka ninka abshir ahaa albaabka laga furay sidoo hore uu sheegay afar wuxuu sheegay in gabadha albaabka lagu garaacay ayna furtay sidaasna guriga lagu galay wuxuu sheegay in gabadha bac madaxa loo galiyay la kufsaday maro qoorta looga xiray oo lagu ceejiyay sidaasna ay ku dhimatay lix wuxuu kaloo sheegay in Axmed Cabdulqaadir Saciid guriga uu baartay kana helay lacag dhan 200,000 muuqaal ahaan lacag ilaa keed buu yiri toddoba wuxuu sheegay in uu guriga joogay wiil yar oo goortii hooyadii falka lagu sameeyay الحمد لله لكن هي أنت فلكاسي كسو جبابي يقول والله هي وقفتين حتى ميت كم إذا اسكودي مركي ويل كير قيلي إنه هانت بيها كله حتى ويل كيركا ميت كم إذا واحد عينه هانت بيها كله وبويد السو شيء جاي هانت نعيم إنه كله ميت كم إذا يري وكذا ويل كيها وإذا هزرعن وسيدا سير كتيسي من دمان wuxuu sheegay in abshir mar kale guriga darbigiisa ka booday isaga sida hore sheegnay wuxuu kaloo sheegay in burhaan oo watay bas uu markii hore guriga ku keenay markii dambena ka qaaday kuna geeyay Washington xogta shirafta ninka burhaan la leeyahay bas uu watay hadda raggan kuma jiro wuxuu sheegayaa inuu yahay ninka baska ku qaaday geeyay Washington waxaan kaloo maxkamadda shirafta la u bariifinayaa محمد صديق مركي وقلبتي لكينا يصدق ويري فالكاس قوبشوك باكا هاي وان قال يرجع المعاصر قالوا تريي سؤال بلودي واحد يرى ما قرنا يسا كوريجي فالكاس قدعي وفلا هو بشين وحير ها من نجين كريسا بدي ها سوق حرا قارن الساري قاري سوق سارن يعني كحيل عليه
sidoo uu waday wuxuu geeyay gurigii hodan ku dhimatay Allah naxariistay iradu istaaji wuxuu yiri waa kan gurigii hay ka soo gashay sida uu hadda runtii maamulayay halkaas waxa ka soo booday hebel albaabku laga furay abshir kadibna anagu xiridaan ka soo galay falkuna gurigana saas loo galay gabadha waa la kubsaday waa la baartay lacagtaas la qaatay intaas oo dhan waxa weeye sidii uu sheegay isagoo wada ciidanka CID ayuu guriga geeyay aan cidi wadin cidi tusin dirayna inuu garanayo sidoo kale markii ay guriga ka baxeen nimankani oo ka carareen laba nin oo kamid ah oo mid yahay kii lacagta 200 qaatay ee sitay waxa arkay wiil arday oo dugsiga yimid markaa baa arkay oo la helayo wiilkaasi markuu arkay nimanka waxa la keenay sadiga wiilkii waxaana la tusay 7 eedaysane oo lagu daray 5 kale 7 eedaysane baa waxa lagu daray 5 kale oo eedaysanaya 12 qof iyagoo ah waa wiilkii yarka loo keenay waxa la yiri ma garanaysaa nimankii guriga ka soo baxay aad guriga ka baxeen way cararayeen lacagna gacanta ku sideen mid jeebkiisa gashanayeen wuxuu yiri waa garanaya labadii nin wajigoodan garanaya 12 nin baa lagu soo xidayay waxa ka soo lambarana waa loo kala sameeyay labadii soo qabtay labadii haduu soo qabtay lambarada la kala siiyay oo la isku qabtay wuxuu soo qabtay Ahmed iyo Maxamed mar labaad ayaa nimankii la isku qalday oo lambaradii loo kala bedelay dadkii loo kala bedelay safkii la isku qalday wuxuuna mar labaad soo qabtay nimankii uu horay u soo qashay u sheegay oo horay u soo qabtay markii dadka laga bedelay lambarkii laga bedelay safkii iyo qaabkii uu tagnay laga bedelay ma iyagii soo qabtay sidoo kale mar saddexaad baa la sameeyay sidii oo kale oo lambaradii laga bedelay dadkii laga bedelay haddana wuxuu soo sidii u taagnaayeen iyo qaabkii la isku soo khalday haddana iyagii soo qabtay labadoodii dulkaas wala helaya waraysigii koowaad iyo kii labaad midna ma sheegin in wax jirdil ah loo geystay Maxamed Sabiye oo qiraarka bixinayay waxa xusid mudan markii uu qiraarka bixinayay waraysigiisa koowaad labaad si tafatiran iyo kii uu sidaysiinay intaba wuxuu u bixiyay si xornimo ah garasho leh qof kasta oo aqlina uu dareemi karo waxa kan uu sheegayo xaqaa'iqeeda iyo sida ay tahay uu sheegayo uu bixiyay uu waday hawsha wax uu sheegana ma jirin jirdilka iyo inkiraadana wuxuu keenay intii xabsiga la geeyay waxa kala tagay nimankana isku firaaqaysan isku cilaysteen waraysiga saddexaad hawsha keenay maxkamadda wuxuu ka hor sheegay in la jirdilay uu san falkaasi geysan ay la jirdileen laba sarkaal kadibna labadii sarkaal laftigooda ayaa maxkamadda la hor keenay warkaasina wuxuu noqday mid aan waxba ka jirin qofku wuxuusan ogeyn falan jirin ama uusan ogeyn goobjoog ka ahayn isagu gelin kaba sheekayn karo ugamana sheekayn karo sidii wuxuu dhaceen wuxuu ka sheekeeyay qaabkii guriga loo galay meeshii laga soo galay cidda soo gashay qof walba meeshuu guriga ka soo galay sidii falkaasi loo sameeyey sidii loo dilay barxumadda sidii guriga loo baartay iyo ciddii baaratay lacagta laga helay cidda qaadatay iyo meesha laga soo saaray kadib sida guriga looga baxay inuu gurigii geeyo dadkii wax baarayay uga sheekeeyo sida wax u dhaceen maxkamaddu dacdooyinkaas aan soo sheegnay hasaato miisaanka sharciga ah go'aanna ha ku gaarto iyada isaga laftigiisa sababtu waxay tahay ninkani wuxuu bixiyay tafaasiil cad buuxda